Somaliye toysa iskotir sadaye hatbakina takdarane tagera valigine. xuska 1 Julaay oo ah maalmaha Israaca iyo midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfurta ayaa waxaa si weyn loogu xusaa dhammaan daafaha caalamka maadaama bulshada Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay ay u suuragalin in gaar ahaan qurbo joogta cudurka coronavirus dartiis ay u dhigtaan ama u dabaaldegaan xuskan. Sanadkan ayaa waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin munaasabadda ee 1 Luulyo maadaama sanadihii hore ay suuragal u noqon. Dhanka kalena xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay oo gacan weyn ka geystay ganacsade Faris Maxamed oo ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Ankara ee wadanka Turkiga. Sidoo kale dadka ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Ankara. Sidoo kalena waxaa ka mid ah muwaadiniin ka socday wadanka Turkiga oo ayagu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin weynaynta maalinta weyn ee ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. Ankara'dan Mogadishu'ya selam olsun. Ankara Mogadishu selamı Bosaso'ya selam olsun. Hargeyse'ye selam olsun. Çiftli'ye selam olsun. dhaqankeena iyo caadadeena aynu soo samaabixinno oo aynu kuraysanno wadooyin loo xiro fardo iyo geel sidaa ay awgeed maanta waxaad mas-uuliyad ka wada tihiin hablo iyo dhallinyaroba inaad calankii Soomaaliya wada guntan tihiin. waxaan leeyahay Soomaaliyeed maanta waxaa dalkeena gudbiyay waa qabyaalad sharaftaa laguma helo. waxaan idin leeyahay qabyaalad wallaahi sharaftaa laguma helo. qabyaalad meel kasta ay joogno waa inaan iska ilaalino. sababtaa waxna wadaanfacaya waa dawlad, wax kastoo nabadaanfacayana waa midnimadeenna. quruxdiiyo sharafta naga muuqatana ilaahay baa caawa nasiib noo siiyey. runtii dareenkeena aad aan u faraxsanahay maana maanta guurada kusoo wareegtay inaan xusno marka Faisal iyo ardayda dhammaan waxaan leeyahay walaal Soomaaliyeed runtii waxaan loo dhacday xaflad aad u qurux badan oo sharaf lahayd inkastoo aanu baahinay waxa weeye run ahaantii oo muhiim markasta in la weyneeyo xuska maalmaha qaranimada ummadda Soomaaliyeed oo ka wada dhaxayo maalmo qaran oo waliba horumar u noqdaan madaxda hadday noqoto madax safaarad hadday noqoto madax waxa weeye ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. mar labaad mar saddexaad ummadda Turkiga ku dhaqanaysa Soomaaliyeed xaasatan Ankara. maalintii ummadda Soomaaliyeed farxadooda iyo maamuuskooda iyo tiritaankooda ku saabsaneed ayaan ka qayb qaatay. aad baan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed ee Ankara ku nool. waxaan leeyahay gacmaha is haysataan. waxaan si aad ugu mahadcelinayaa walaalkay Faris restaurantiga Sanaag maamulaheeda. waxaan leeyahay aad baad u mahadsantahay sida aad Soomaalida iskugu haydo. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashka, Universal TV, Ankara, Turkiga.